بسم الله الرحمن الرحيم غيرت kusoo dhawaada qaybteeni afraad ee Django qaybtan afraad waxaan ku sameynaynaa application-ka bowling-ka ama booliska ugu magac dartay Django documentation markaa tagtid qaybteeni hore waxaan soo dhaxgalnay saan u jeedno my site hadda darab meeshan inaan ka baxno control C leedahay control break na dhigi kartaa dartid okay control C maadaama my site maadaama ku jiro waxaan sameynaa my site waxa ku jiro manage.py marka ku jirto commands badan la adeegsan karaa marka manage.py directory-gan ay la siman tahay in gudaha aan ugu jiro waxaan sameynayaa waxa ku xigo waxa waaye waxaan leeyahay python manage.py marka dhaho waxa ii xiga waxa waaye in abuuro app marka waxa leeyahay start app bodies okay successfully created hadii uu sanku ugu soo macnaha uu sadarkan saan amal kugu soo saaro just waa shaqada si fiican u dhacday waxba kama qaldano okay so ujeedin meeshan application markaa sameeyay wuxuu leeyahay kii sida hore amal migrations kan oo dhanka database-ka ah init-ka oo muujinaysa in directory-gan oo hadda aan ku jiro oo poliska ah inay tahay package admin-ka oo lagu talagalay for admin-ka apps inta app uu ka kooban yahay sidoo kale modeliska oo classes loogu talagalay in qaabka daatada ay u taalo loola macaamiltamo okay tests nama qosaysanaa testingka views-ka waa meeshan views-kan oo Django waxaa loo isticmaalaa marne waxaa jiro wallahi functional based views iyo class based views marka marna function ahaan loo sameeyo views-ka marna class ahaan hadii aan soo koobno ayado caadi ah waxaan sameyn doonaa functional ayaa isticmaali doonaa marka horeeto class-ka oo gaari doona insha Allah waxaan sameynaynaa inaan soo daawacno hello world mar walba oo wax la sameynayo programming-ka waxa ugu horeeya waxa waaye in hello world la soo daawaco Django marka joogtid waxa u baahan tahay marka koowaad horta waxa la hayo view ina abuurtid view-gaas sida uu abuuro waxaan u baahanahay function ina abuuro functional based views isticmaalana saas darteed waxaan leeyahay def function-ka ugu horeeya ee la abuuray badanaa waxaa loo yaqaanaa index laha badanaa isaga bixiya waxay rabtaa u bixin kartaa adiga waxay qaadataa request-ga hadhowti waa lasoo codsan doonaa function-kan kadibna shaqadii ayay qaban doontaa okay function-kan markii lasoo codsado shaqada uu qabanayso waxaa waaye in response bixiso waxaa loo yaqaanaa response-gaas http response-gan string allah hello world ayaan ka dhigaynaa http response-gan soo ujeed error aan haysto error-gaas waxa waaye wuxuu rabaa in lasoo import gareeyo from Django waxaa leedahay Django saa ujeedid package waaye waxay leedahay module la dhahayo http-gaas waxaa rabnaa class ku jiro oo la dhahayo http response yes meeshan from-tana qaldan import okay saajid meeshan hadda dul istaago waa class http response la dhaho constructor-kiisa waxaa ugu soo dhiibay hello okay si aan u arko markaa rangareeya hadda tusaale python manage.py
okay falaran ka soconaa si aan u qoran waqti badan oo isaga qaadan command-giisa garintiisa python manage py run server markaan dhaho si fiican fiir waxaan rabaa inaan hello world arko okay geena inta u baahnaan meeshaan inuu geeyo waxaan u baahanahay inuu isoo bixiyo hello world-gan si loo arko waxa loo baahan yahay marka koowaad horta inaan abuuro waxa la dhahaa urls.py ala new file oo ah urls.py gan waxaan u baahanahay inaan dhaho from Django dot urls import path okay kadibna waxaa abuureysaa list of url buttons waxa la dhahayo url buttons waxaa kula mid ah listigaas marka waxaa u sheegayaa pathka oo viewgayga applicationka oo booliska ah waxaa u sheegayaa pathka ama url-ka viewga marka viewga markii applicationka lasoo galo maadaama ay tahay index ayadoo home ahaan u qaadanayna magac aan bixinayno slash waa dhihi karnaa bolis waa dhihi karnaa oo bixina bolis macnaheedu sameynaysa aan aragno kama aan leenahay saa ujeed waxay qaadataa viewga muxuu ahaa wuxuu ahaa views dot index ujeedid ma import garaysna viewskan oo inta yaala ayaan soo import garaynana maadaama isku meel yaalan waxaan leeyahay from dot waxaan ka wadaa isku directory-gan anu ku jiro directory-gan booliska lahay anu ku jiro waxay soo import garaysaa views ujeedaa soo ma markaas waxaan leeyahay import meeshaan hadda viewskan ka bixi inta lagu soo import garaynaa import views okay next waa optional oo waxa la dhahaa name waxaa loo isticmaal dib ka arkaynaa name waxaa u bixinaynaa index okay still hal mid aan naga dhiman marka inaan u sheego website-ka ama project-iga Django my site-ka ah in markii lasoo aado saa ujeedid markii lasoo aado applicationka /bolis ama meeshaan markii lasoo aado oo ii keeno booliska marka hello bolis ay ugu soo baxdaa u baahnaa inaan sheego inaan dhaho bolis bayaan ama waxaa raba ka dhigi karaa okay bolis ala aada le markii kan la soo codsado waxaa isticmaalaya marka function la dhahayo include maxay qaadataa isla fiirino include waxay qaadataa inta kama dheh errorka meeshaan haystaa include waxay qaadataa marka koowaad url buttonka waxaa ku xigo inaan u sheego applicationka oo ah booliska urlskiisa ayaan u sheegaya marka waxaa leeyahay bolis dot urls waxaan baahanahay inaan rangareeyo oo istaagay serverka okay waa rangareeyay okay refreshan leeyahay error ayaa jiro wuxuu dhahay
empty path in batch. Okay, meeshaan waxaan uga haystaa marka slash police ayuu u baahan yahay slash police waa kaas hadda slash police marka haddii aan rabo marka in slash police aan qorin in toos inta u imaado just meeshaan waxaan u laabanayaa VS Code kan tagayaa kadibna waxaan tagayaa u baahanahay inaan tago waxaan u baahanahay just police-ka URL-kiisa tag URL-kiisa markaa tagtid xiis aan ku daro si loo arko URL-kiisa police meeshaan ku qoran tahay haddii aan saan dhaho yes toos loo imaan doonaa hadda markii aan refresh dhaho aan ku laabto meeshaan slash geli okay waxaa qaldna meeshaan police ku qoran police kan tir slash kan aan ka bixin okay hadda aan dhaho refresh aan dhaho hello soo qabtay mar walba in isxelisid oo error mar walba ku qabsanaya qaybteeni afaraad ee Django intaas ay noo egtahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.